mujaahid booba yuusuf ducaale oo ka mid a mujaahidiintii ururkii la dagaalanka dowladdii kacaanka ahayd ee snm ayaa waxa uu maanta si weyn uga hadlay islamar ahaantana wax laga xumaado oo ku tilmaamay falka ay dowladda federaalk ee soomaaliya ku sheegatay inay maamusho hawada somalilan islamar ahaantana ay ku karantiiraysa kuna joojiso diyaaradaha kala duwan ee ka soo dega garoonka caasimadda somalilan ee hargeysa cigaal international airport waxaana uu mujaahid booba yuusuf ducaale wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo sidoo kale horumarinta hawada soomaaliya ku tilmaamay mas-uul hanan kari waayey shacabkii iyo ummaddii u igmatay xilkan islamar ahaantana ku taag daroobay jagadii musharaxnimo ee dhanka madaxweynaha maamulka goboleedka jubbaland taasi uu sheegay in madaxweyne axmed maxamed islaam uu kaga awood batay hanashada shacabka islamarkaana uu yahay mas-uul ka gaabiyey kuna fashilmay xilkii uu tartamayey waxaana uu ku tilmaamay sheegashadii sidoo kale maamulidda uu sheegay inay maamulo hawada somalilan inay tahay han iyo sidoo kale kooflakac uu la soo kacay mas-uulkaasi hadduu mujaahid booba yuusuf ducaale ayaa si weyn u karbaashay islamaraantana u dhaliilay mas-uuliyiinta iyo sidoo kale madaxda kala duwan ee dowladda federaalk ee soomaaliya isagoona uu ku tilmaamay inay ilaa hadda leeqilaayeen kana daadegilaaday inay somalilan noqotay wadan iyo qaran lugihiisa isku taagay mujaahid booba yuusuf ducaale warbaahinta maanta kula hadlay gudaha magaalada hargeysa ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ahaa dhuuranka iyo shubanka maalmahan xamar ka socday ayaa u badnaa hawadii somalilan waa la xidhay dadkaan u turnayo 2 maalmood baanu furnay maye waanu iska sii daynay weligeed buu iska soconaysaa dhuurankaas wuxuu ka soo baxayaa meel la yidhaahdo wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada oo uu madax ka yahay ama wasiir ka yahay nin la yidhaahdo Omar oo ku dhici waayey intuu u holaday inuu iska sharxo magaalada Kismaayo haddana ku dhici waayey inuu Axmed Madoobe halkaa ugu tago ayaa isagoo xamar jooga oo aan gaariga ka daadigi karin oo aan dukaanka intuu lugeeyo wax ka soo iibsan karin ku hanjabaya hawada Hargeysa iyo hawada Somaliland ayaanu xidhaynaa ma xidhnay nin loo jiray Ducaale Qaris oo cahdigii sayidka noolaa sayid maxamed cabdullaahi xasan xariisi janna ilaahay ka waraabiye ayaa ku hamiyey inuu sayidka dilo markaas habeenuu saaxday ayuu hoota ku weeraray wuxuu yiri hootadan goldheeriye ka rida xamar guudkooda waxay sii gigleysaba haday godankii eel gaadhay wadaadkii sida uga gabaday waa golmarantii aroortii markuu toosay buu arkay in waagu dawadiisa ka bariyo sayidkii nooliyay sayid maxamed cabdullaahi xasan maanse uu kaga jawaabay ayaa wuxuu ku yiri ninka yiri waxbaan ganaano gol iyo cayn joogay yiri badii garacad baan gudub u weydaashay godka lagu cadaabiyo muxuu goohu baan sheegay Omar horta kaasuu ka dhigan yahay qaryaandoodan ayaa meerfurahay ku guwaabinayay jabhadii Soomaali galbeed maruu si walba wuxuu tilmaan iyo wax sheegteed walba uu dhigayay ayaa wuxuu ku yiri bal si kalena aan idinku sawiro saa u garataan Cabdiqays baa wuxuu iga sheekeeyay sheekayro ahayd nin qurbaha jooga oo caruurtiisa la daawada habeenkii TV-ga oo ka ilaaliya muuqaalada foosha xun leh ninkaasi mar aliyaana marka inanka inanta filmka metelaya isu soo dhawaadaan ee ay wax ku hamiyaan ama u holadaan ayuu yar ka baqtiya markuu israado muuqaalkii uu dhaafay ayuu sii daaya maalintii dambe iyagoo tareenkan dhulka hoos mara la socda ayaa laba saa isugu loohnaa ay ku dhawaadeen in mariyaha isu dhaafaan ku yar u dhalay oo la socday ayaa ku dhaaba baqti laakiin tii meel wax laga baqtiyo ma ahayn oo shaashadii waxba lama daawanay remote ma jirin odayna waxba gacanta ugu jirin horta Omar meeqaankaas uu taagan yahay dhashii Hargeysa Omar waxay ku soo faraysaa ma dhalinyaradii dadkii mudakarka ah iyo dhooriyada jirkii waa dhashii waxay ku leeyihiin gacan maran baqti bal xid hawada Hargeysa dadka ku hamiyay hawada Hargeysa in la xidhaa wax allayaala waxay dadkii ay mas'uul ka ahaayeen u hayaan ma jirto ninkaan hawaan xidhaya aqalkiisu waa quraarad xabadi makartaya gaadhigu waa quraarad xabadi makartaya noloshaas ku nool yahay ku socda cagahaba dhulka kuma hayaan markaasay kooranayaan hawadii
ayaanu xidhaynaa annagu dad hawe laga xidho ma nihin inay hawadaydu noo furnaato oo ay gacantayda ku jirto oo aan u madax bannaanaano oo ciddii aanu doonno aanu u soo dayno ciddii aanu doonnana aanu ka celinno dhiig iyo dheecaan baa loo soo huray annagu dadka dhagxaan uma karinno mudnaanta koowaad ee Soomaaliya mudnaanta koowaad waa ammaan ta labaad waa ammaan ta saddexaad waa ammaan ta afraad waa ammaan ilaa tira aan dhammaanayn waa ammaan markuu yimaado ayuun baa nolol laga hadli karaa shacbiga Soomaaliyeed waxa la yaala waxna dhex yaala ma jiraan 60kii ayaanu israacnay 5 Soomaaliyeed baan baadi doonanay walaalaha iyo wax kale kuma lihin war waxna taban mayno waxna ka caban mayno waxna dooni mayno waanu isu garan weynay waxaas sidii horeyno ahayn waanu isu garan weynay annaguna waanu eednay idinkuna waa eedeen dabaqad kale oo dusha inaga saaran ayuun baa mar walba ka faa'iideystaa sidaanan dheecaankeenna iyo dhiiggeenaba ku nuugtay waanu isu garan weynay waxa la yaalo waxaanu idiin qabnaa ma jirtee waanu idiin soo ducaynaynaa ilaahay ha idin badbaadiyo meel roonna ha idin geeyo gabaareydaa sida gafanaha idinku dhegana ilaahay idinka furfuro ay aan ahayn qurbo joogta ee tirahdaan waa qurbo joog ma aha qurbo joogtu waa dad wanaagsan waa dad dadka wax taray oo dalka wax taray oo horumarkiisa qayb ku leh oo warshadayntiisa qayb ku leh oo ganacsigiisa qayb ku leh oo aan hunguraynin dhiigga iyo dhacaanka waratada waxa idin haystaa ee dusha idinka saaran ee oomaarkaasi ka mid yahay ee dibadaha ka yimaada u joog baa la yidhaah waa xilu joog sida gorgorrada ayay saaran yihiin geedaha marka hore oo xil bay sugayaan markay qabtaanna waa xilku joog oo xilkaas may waddanka ku joogaan haddii ka daadegaan oo ka dhamaatana waxoogaa geeraa bay sii qaataanoo waa dhoofu joog saasay u joog yihiin qudhidayada iyaroona gubtaa wayna hoos taallaa laakiin tii heerkiina maanaan gaadhin kuwaana waan idinka soo ducaynaynaa waxba yaan dhagxaan laydin karin waxba yaan markaad tirahdeen cuntaanu doonaynaa laydinku odhanin weli deyntii laynagama cafiin waxba markaad tirahdeen waxaanu cabnaanu doonaynaa yaan laydinku odhanin deyntii laynagama cafiin markaad tirahdeen caabuq waana soo galay waxba yaan laydinku odhanin deyntii laynagama cafiin deyn cafin cuni maysaane waxaa u baahan tihiin ina aayihiina ka tashtaan oo iska kor qaadaan dhilowyahanka iyo deriska noosha korkiina ka baxday ereyga ugu dambeeya waxaan ka odhanayaa koronaha ilaahay ha naga badbaadiyo dadka adduunka aadamaha oo dhan ha ka badbaadiyo dadka muslimiinta ah si gaar ah uga badbaadiyo dadka Soomaaliyeed ha ka badbaadiyo haddaynu Soomaaliland nahayna ilaahay ha naga badbaadiyo dawladda dadaal faran dadaalka dawladdu gasho mid inagu filan maaha dadaalka inagu aynu dadweyne ahaan ku jirnaana mid inagu filan maaha labadeennaba waxa laynooga baahan yahay dadaal intaa ka badan digtoonaan intaa ka badan feejignaan intaa ka badan waxba yeynaan isku maaweelin halkan kama dhacayo dadka noocaas kuma dhacayo ciid caynkaas kuma dhacayo yeynaan taa isku maaweelin dadaal intan ka badan waa arkaysaan Shiine iyo Talyaani iyo Spain iyo Mareykan iyo say ula rafanayaan awoodaha lacageed iyo dawo iyo sariiro la seexdo ma hayno laakiin timid aanay hayn baynu hayn karnaayo niyad bira oo ataynu halkan ku soo gaadhnay ayaynu leenahay tii baynu u baahanay inaynu soo noolayno iyo midnimadeennii iyo wada jirkeennii saas umaynu kaga adkaan karnaa dadka waxaan faraynaa inay digtoonaadaan fariimaha la farana sida ay yihiin ay ugu camal falaan aanay iska difaacaan oo ay iska ilaaliyaan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.